إن دجال صومالي لحظة ما أنت لا يوريو لما ربوا دجال ويل كم الله شو وكل ما يهلي وكانت لنا كمان توبان لنا كجوان لنا شقة كلا قبصة يسقط لنا ضدك لنا. قدوميها هرمارنت beelaha Mudlood Muxidiin Xasan Afrax oo caawa xafiiskiisa kula hadlay Somali Cable ayaa ku baaqay in la joojiyo rabshadaha ka socda magaalada Beledweyne waxaana dad u sheegay in rabshadahaasi horanay ugu baaqay inay joojiyaan oo ay ka shaqeeyaan nabadda magaalada Beledweyne iyo dadka tabarta yar oo la yiraahdo Berubageydada oo dadka la dhowr jaray inay yiraahdaan ordaha ee gurigiina guba ee luga guba ee boorar qora ee hirshabeel ha dhacdo dhaha ee dhagxa tuureeya ee fidnadaas dhaxgara dadka abaabulaya waxyaabaha noocaas ah waxaan leeyahay in kala taliyaan rabo in yiraahdo warsaas waa laga haboon yahay hayeerinina sidaas hayeerinina waxa badar socda oo sharaf leh oo meesha jira dawladda dhexana waa baxday dawladda hirshabeelna waa aadeedana waxa aaday wasiirka arrimaha gudaha oo jira meesha waxa jira labada baarlamaanba wala shacabka ximna ka socda oo dawladda dhexe federaalka meesha jiraan dawladda hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka jira gudoomiye baarlamaanka jira xildhibaanna jira intaas oo dhammaan meesha waxay jiraan dadaal ka duwan kuwa fidnada kicinaya waa ka duwan tahay jiraan inay wax dejiyaan ay u jaraan meesha waxaan leenahay maado ka gaar waxaan la talaynaa kuwa ay taladu ka xun tahay kuwa noocaasa waxaan ka arkayay waqti dhow meediyaha aan ka arkay hadalla aan ku haboonayn oo dhahayo nin weyn kana soo qabtay dalka xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii kala dambeeyay waxa waaye goodax bare نسوي شقيه وين وضعيه الصومالي هو دعوة ووايرة سونا شقيه وواي أرك ذاتك اللي قلت المعمو ما نتوقع الله يرحمه إن لقى فائدة استأسيا أو ذاتك وضعه في عنكواب الدين وصية عمل أبابلان المهيان ناقيه أي غرش كوب حيان أي فن الله بعنيه كوب حيان إيه لهذان بربورية وحيدين دسناي يعني السحمة gudoomiye Muxidiin Xasan Afrax ayaa ka bariyeelay eedayn loo jeediyay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen nin dhalinyaro ah oo soo shaqeeyay oo dalka wuxuu bartay horena uga shaqeynayay oo dawladda horena kala shaqeynayay Hirshabeelle haddana nasiib u yeeshay inuu madaxweyne noqdo waa Cali Guudlaawe nima Soomaali u kala dhaweyn oo Soomaali isugu mid tahay oo kala soo aqoon oo wanaag lagu yaqaan oo culumana ah wanaag ka tarisna ah nin odaya oo lagu yaqaano wanaag iyo maaragtay dhaqan wanaag lagu bartayna waaya ninka uu ku yiri kelmadaas oo ku sheegay ninka la yiraahdo goodax bare gudoomiyaha horumarinta beelaha Mudlood ayaa xildhibaan goodax bare waxa uu ku eedeeyay in markasta uu xil waayo uu dacaayad ka fidiyo horumarka socda haddana waxa way wasiirka waxbarashada hadii laga qaado waa kan dawladda xanu ma fayaabo tiir shabeelle ma fayaabo يعني وحاول خليك تي رقم هذا حلو عيبة إنه كوسو توصه الوساطة إنه عايه أم بفضيحيه أم بإسكدرو بالشدة هروس عليه مرك أرنت والله يعرف عن معن أرم قضايا معن من قضايا هو ده سو صوماليا الله مرة إنه سؤال شغله أو هروس وقفت وخلاص وقفتين لو غبر إنه ساسمه عبد الحين عيلاوي Somali Cable مقدشو ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank